nafsi ruuxi gaxsha godolkiisa maaliye sidaan anigu ku galay gafi maysid adigu argudashadaaduna gar ilaahay weeye ayga goosan caawad ayga goosan caawad adiga gacan saraysa habeenkuu kaa gacan sareey in uu kaa argoosto ma jeclid haye adigana laakiin maxaa la dhahaa mataqaana qof gafa abaalkii yahay gool darante waxaan ahay ninka baryay gacantaada mudatee waxaan ahay garaxiyo godobka tirsanaye guurhayga filanin gurigayga baash wala ogolyahay karbash xalaala waa wala ogolyahay wiilasha hadda loo maado waa nooga dheereen haye horta xanti waa nooga dheereen hadda oo tii darbigii loo raadsanayo bismillaah heblaay waxay tiri gabdhaha lagu aqoon jiray hadda wiilasha koobka qaadeen ayagii kaa bartaa kaa badiyo iyo jacayl ii sheegto moogta hadda wiilasha nooga dheereen mar baan dugsiyada galeedhi guul baan islahaa ka filo halkan wacdarayga gaadhay waxbay nagu soo ganiyeen ganta lagu soo ridiyeen arlada kala gaabiyeen barkin gabi baa ku dumay godoon bay qaar yihiin aniga gobol baa imaqan gumaadkiina uu socdaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوديال meel walba oo dunida dacalada aad ka joogtaan kuna soo dhawaada channelkiina xiisaha wararka barnaamijyadu kala xiiso badan martidu kala qiimo badan waxaa maanta halkan ila fadhisa fanaanadeeda qaaliga ah hodan badbaado oo kamid ah xidigaha ugu shidan magaalada muqdisho isla markaana aniguba aan kamid ahay dadka taageera hodan badbaado soo dhawo walaashay ودوها لك إيشيس هاي حوا شوتي هلا معها خلاص دن مدمي باني هاي ميا إيش قلت هذه اسم قيمة كرتيد لكن برشة قيمة كرتو أنا هدان هذه قيمين نقف كل عن قيمين عن الجرو سودو ودوها ولا الكي لما أنا سحابك كحيران يسا وركنا وإذن سلامو هاي أنا بوس كود متلاعي وكاقادني هذون بدبادة وتما هذون بدبادة وتما قاب كان لعواي أيه قايدي دار فديتو أيه من دار ما بلغ الرادي قرتي هذه قبر سوماليات ده أيه هذون بدبادة إن تكمل نقطة فنانين مقدشو قارما يد بالله ذي فكر كذا إيو تابع قلنتيسا horta fikir markeen dhaho saqiirnimadeeda igu jirto adiga adoo yar sagaal jir markaa aan macna meel ugu heesaa ilan rabin fahanti haye laakiin inaan koox kamid heesaa carruurta ma qaadi jirto mise heesaa waaweyn heesaa dadka waaweyn aan jeclaan jiraa maxaa ku dahan haye waxaan dhageystay waxay xasinta waxa u yaraadiyay saardow waagaas waxa aan dhageystay dadkaas u yaraa bal in xusuustaada ay fiican tahay waagaas ay si aad dhageysan jirtay mid naga xusuus abo waxaan dhageysan jiray adeerka la dhageysan jiray macnaha sagaal jirkay in kaliya wax ma dhageysan jirin haye heesaa adeerka u jeclaan jiray wadani u badnaan jireen laakiin kuwa jacaylka ahaa heesaa la iskarbaashaan jeclaan jiray adiga haye hadda wax karbaash bal hees aamina feeri maxamed saleebaan ka xasuustaa haye nafsi ruuxi gaxsha godolkiisa maaliye sidaan anigu ku galay gafi maysid adigu argudashadaaduna gar ilaahay weeye ayga goosan caawad adiga gacan saraysa habeenkuu kaa gacan sareey in uu kaa argoosto ma jeclid haye adigana laakiin maxaa la dhahaa mataqaana qof gafa abaalkii yahay gool darante waxaan ahay ninka baryay gacantaada mudatee waxaan ahay garaxiyo godobka tirsanaye guurhayga filanin gurigayga haba soo gelin haba soo imood baa dhanbo banaankaaga joog waa gartay bal maadaama ilaa 9 jirkaagii aad jeclayd
goormee marka muxuu ahay sheeg inaad bal bulshadii soo dhex gasho fankaagina aad muujiso aad bilowday horta fankayga muujina markaan ku dhaho yaa ilaa hadda fankayga ma muujinin haye laakiin ina fanaaniinta soo dhex galo ama aan koox ka mid noqdo waxay iga soo gashay 2004 ama 2004 2004 haye koox la dhihi jiray horyaal baan oo markaas magaalada u shidneed kooxdaasaan ku biiray dabayaaqadii 2004 adii 2007 bilowgeediina kooxdii wayba kala burburtayba adii magaaladii iska qasmatay waa lagu kala tagay meesha ana dhowr sano oo isaga maqnaabo adiga danahaagii howlaha kala raaxatay 2011 aan tan kusoo laabtay ha ana xilligaas xasuustaa aan koox kale kusoo laabtay صح laakiin ay adi waxaan sabarano taqan ها 12 12 7 مارس 7 maarso yes waliba maalin aad muxuu ahayshay gurif xoogan ku jirtay dagaal xoogan aad ku jirtay badbaado xagee jirta horta yaa heestii ahayd horta intaad wax kala gelin heesta aan aad ku jeclahay heestaas waaye bal heestaas igu dhufo qoraalin buu soo qabana hay isoo qabo ani badbaado xagee jirta horta ka xasuusta ha hay barbaartan wada qorniyo bulshada kaanu gaaxisheen barbaartan wada qorniyo bulshada kaanu gaaxisheen kalgacayl ugu baaqaya hadduu yahay midaan ibixin badbaada xagee jirta badbaada xagee jirta badbaada xagee jirta badbaada xagee jirta heestaas waxay ahayd heesta ugu horeysay oo si gaar ah u qaadid mise hees kale ka horeysay erayadii ugu horreeyay la siiyay waa heestaas oo la dhaha qaadbo adiga lagu siiyay ha 2004 laakiin ima suuragelin inaan qaado laakiin waxay noqotay heeskii ugu horreeyay in meel soo istaagay waa gartay asxaabta marka idin leeyahay maalintaas dagaal xoogan ku jirtay wax kale ma ahayn hay-ad aan media officer u ahaa oo la yiraahdo CCD Center for Community Dialogue oo ka shaqeynaysay wacyigelinta bulshada ayaa waxa ay qabatay barnaamij la yiraahdo heesaha hirgalay tartankaas ilaa dhowr sano 3 sano meelahaas ay qabatay marka tartankii koowaad ayaad ka soo qayb gashay tartankii labaad oo ahaa ka markaa kii koowaad waa kii Nasr Baashar qaaday ha kii koowaad Nasr Baashar qaaday kii labaad ay muxuu ahaay sheeg waxa ay kamid ahayd tartamayaashii fanaaniintii ku tartamayay marka challenge-ga iyo dagaalanka iyo waxa ay ku jirto waxa ay ahayd sidii ay kaalinta koowaad ay ku gali lahayd maalintaasna aniga iyo Allah u naxariistay saaxiibkay Timacade waxaan kamid ahay raggii taageerayay hodan badbaado الله يرحمه هي أريج مالك أس لو قدام حستا يس هي صدق ساكو قال كرتا هي أقول ديدني كان تستحق ما ساكو قال كرتا هي لكن أنا ما بسدي بيمبو هي أنا ولي أفكي قفوركي قوة تاهن تاجنا عدكي جنا ولا ها فانكنا فقار هالمال لسه استاج ما بأهم صح وهذا مات محو عايشة بل هسكاس إيو ترتن كامر كهالكاس وقصو قدبنا balfankaagii in muxuu ahaay sheeg aad sii guda gashid oo aad hees bulshada saameyn ku leh aad soo qaadid iyana goormay ahayd wala aniga kooxda deegaan ee wasaaradda kalluumaysiga ka tirsanaa heesaha aniga inta badan aan wax ka qaad jirin guubaaba un bay ahaayeen wadani ani sideeda ahaan hodan ahaana jacaylka iyo wadanigaan jeclay wadaniga iyo jacaylka wadanigaan jeclay haye sida darteed inaan hees kaliya qaado waxa aan ka sii jeclaa inaan hees group lagu qaadayo wadaniga aan qaado guwaada ana group kuma jecli bilaamid ana guwaada san jeclaa oo safka dheer la galay oo gacan san loo tuuramo maba ku heesti maba daawado bilaamid aniga laakiin hadda wax badan ayaa iska bedelay waxaa la bilaabay in fanaanka qofka qaadayo uu ka soo dhaxbaxo si gooni ah chorus-kiisa uu u qaado la bilaabay baarsolkiisa looga qabto ha muxuu ay sheeg fikirkaasna waa soo dhaweynaa laakiin waagii hore ayadoo safkii saan la dhahayo kii heesta qaybta ku lahaa iyo kii kale kooxdii wixii oo dhan isku wada jiraan no ninaan saaxiibana wuxuu u bixiyay laamigii madoobaay u bixiyay muxuu ay sheeg heesaha qaabkaas loo qaadayo dhan
weliba heesaa aqaaday waxaan jeclahay hees wadani ahayd oo yacni isha ka hadlaysay qaraxa adiga iyo fanaan kaloo da-yar magaciisa ma xasuustee muxuu ahay sheeg qaybta aad ku lahaydeen waxay ahaayeen qaybo saameyn leh ma xasuustaa waxaan umaleynaya heeskii ugu dambeeyay ee video kooxda deegaan bugey gacantooba joogo ismaaciil arka iyo aniga iyo saadam sky ayaan ahay heeska ereyada waxaa iskale doctor cabdiraxmaan ducaale bayle laxankii iyo muusigana ustaad sidi caliinki wasiirka heeso badan uu sameeyey muxuu ahay sheeg heesaasay ka mid tahay heestan haybeejka ka lahayd bal bulshada aan dib u xasuusin waddanigana waa gelaynaa jacaylkana waa gelaynaa meelaan deynayna male haye inta u dambaysan soo qabanaa mar baan dugsiyada galidhi guul baan islahaa ka filo halkan waxdarayga gaadhay waxbay nagu soo ganiyeen ganta lagu soo ridiyeen arlada kala gaabiyeen barkin gabi baa ku dumay godoon bay qariyihiin aniga gobol baa imaqan gumaadkiina uu socdaa weli gumaadkiina uu socdaa muxuu ahaa ii sheeg bal fanka marka la yiraahdo waxa uu leeyahay muxuu ahaa waxyaabo oo iska challenge u bixina anaga laakiinse xusulna waa la dhahaa bal caqabado dhinaca xusuladoo kale ee fankaagii kusoo wajahami jireen inta aad ku guda jirta halgankaaga horta waxaan aaminsanahay sida mujtamaca kale ay u kala duwan yihiin ayay fanaaniintuna u kala duwan yihiin hadday musician tahay hadday heesaa tahay hadday ciyaartoy tahay marka dabcan way dhici kartaa bulshada kale sidoo ay xurgufta uga dhex jirto fankiina way ku dhex jirtaa laakiin waxa aniga dhib saameyn weyn u yeesho oo aniga fan iga soo gaarin jirto waa gartay waxaa la sheegaa inta badan hees inta fanaan la siiyo laga qaado fanaan kale loo dhiibo muku soo mareen hees kaliya maya haye maya abwaanku hadduu yidhaa heeskan qofan hore ugu dhiiban waxaa yidhaa abwaan iga raali noqo aniga mid kale isi oo cusub mid kale cusub isi aniga total wax gabar walaashay la siiyey haba isiinin anaa ka codsadaba hadduu idhaha xataa waa la qaadi waayo hadduu idhaha xataa gabar kale u dhiibaan laakiin aniga wax gabar walaashay iga hormartay oy niyadda gashay aniga haysiin hadan sida aad sheegtay inta badan heesaaga waxay u badan yihiin kuwa wadaniga iyo kooxaha marka la yiraahdo in magac laga sameeyo fanka ma isleedahay kooxaha marka aad ka tirsan tahay iyo markaad iskaa u taagan tahay waxaa qurux badan inaad iskaa u taagan tahay yes qofku wuxuu gooni oo bulshada si gooni u barataa markuu keligii markaasuu magaciisa sameeyaa أنا كل يبغى حنا من سنة هاي إنك سؤال نفسيا عن هي صار جمعي ودنا كوقنا سنة هدنا وحن ما أنت يعني كارنتي أنا واب مقلة وحنا من سنة مشغول أنا كم مشغولة إني دنيا ودني جامعة هذه هي محاها إيشك بل دنك كلام مركل لقى فيريو هي ساعة ودني هي ساعة جعلك برشلو كيبادي جيستا هذا برشلو مجتمع هذا وحمد دقيستان بوحي داودان أي ما جرت هذا وحمد دقيستان داوشة نفس الكيادة عتا كوي داودان ويجعلي dadku waa weyn inta badan wadaniga daawadan laakiin ciyaalka xaafada waxa wax daawada laakiin waa dhalinyaro youtube-da markaa fiirisid anigu hadda inta badan youtube badanaan check up ku sameeyaa dadka ugu badan ee booqdaan daawada waa inta u dhaxaysa 18 ilaa 35 inta u dhaxaysa ayaa wax daawado inta kale waa 5% iyo 2% wax la midka ah hadii markay heesaa jacaylka ay jecel yihiin ka war dhalinyarada ah jacaylka loo qaaday noqon marka macnaha afkoodan ku hadlooyaa mogtahay dhinaca wadaniga waxa qaadi kartid waa qaadee dhinacaas u soo leexo dhinacaas ma soo badi bal haddii la yidhaahdo hees jacayla qaad oo talantaali ah fanaankeed isdhihi lahayd allay lehe waad isla keeni kartaan heesaha ma fanaaniinta hore mase fanaaniinta kuwa hore facaa maamo faci maa laakiin dada jeclaha jiro haye ayagaasna noo sheeg kuwa haddana noo sheeg أنا قف أن جعله يعني إن ما أنت فنان كاس هدي الوصينة هيس كان لقاك فرح لا محمد علي برعو برعو يد جبار يا يد
hedha gacaalo hedhe haye hedha gabaryay hedhe haye ya heesihiisa markaa ii sheeg heesaasaa ugu jeceshaa iyo hees kaloo caanha jira asna dhaqtar bay sokeen qoray adna weli ma dhaadani heesa badan u leeyahay laakiin aniga heeska aan si gooni u dhageystay hedha gabaryay heestaas waay kuwa hadda imaanaya marka dhalinyarada hadda shidan imaana horta dhalinyarada hadda shidan wiilasha codadka fiican codadka macaan waa jecla laakiin qof yacni aan isleeyahay maanta luuq walba waa isla mari kartiin cabdifataax faarax cabdi cabdifataax yare waaw muxuu ahaa ii sheeg horta mar baa isla soo qaadeen hees intanaa mali dhowr hees isla qaadnay haye laakiin waa ninka yacni aanan luuqna uga faka karin adiga ha haye tubtaada yaqaana laga ha ma fanka khiyaanooyin oo leeyahay yes maxaa ka mid ah luuq marowga waa lagu kala horeeya laakiin wax ka baranay qofka markaad majority wax isla xafidiin laxmada isu toosisiin wax kala kororsatiin waa qof luuq walba kula yaqaan luuq laakiin fanaan asba turukoolow ah iyo adoo gooni turukoolow ah qof walba dhinaciisa oo bahashiisa ka dhisana laakiin qofka aan dhinacna uga fakanin waa qofka aad isla taqaaniin oo aad muxuu ahaa ii sheeg soo wada shaqayseen isku koox ahaydeen isla soo jabteen waa gartay heesihiisa markaa isla qaadeen waa cabdifataax fiina wiita waa isu dhaafsan anigaasi haye heesaa isla qaadeen heestee bulshada ay falcelin badan ay ka keeneen oo ugu commenti hees badnaa aan isla qaadna anigaasi horta laba heesaa wax youtube ku jiro isla qaadna uga jira labadaasna hees dhowr mar la weydiiyey waa hees leeyahay hal adayg haye waxa adag maxaa ah wala hal adayg waa kee haye maxaa loo jilcin waaya laba qof oo ayago waan isjecel yihiin haddana mid walba is amiirintiisa amay tahay ayaa mid walba qatar oo iska dhigaa mid walba qatar oo iska dhigaa dantooda dhexday uga sii baxda fuuritaanka gabdhaha lagu ogaayay laakiin hadda wiilasha nooga dheereen hadda wiil inta jecel loo sheegtay waxaas amaysan jirnaa isleeyahay wiilasha hadda horta laba maadab oo nooga dheereen haye majority ana iga xumaaninayaa ma wixii karbaash waa la ogolyahay karbaash xalaala waa la ogolyahay wiilasha hadda laba maadab oo nooga dheereen haye horta xanti waa nooga dheereen hadda oo tii darbigii loo raadsanayo bismillah heblaay waxay tiri gabdhaha lagu aqoon jiray hadda wiilasha koobka qaadeen ayagii kaa bartaa kaa badiyo iyo jacayl ay sheegto moogta hadda wiilasha nooga dheere haye qoftii aad jecel sheegatay ma baasha gabdho ay ismacaanin jireen hadda wiilashii ay laakiin suurtagal ma tahay inta badan qofka dhoo saasa heblaay tiri inaysan waxaas waxba ka jirinba ninka raggaa ma sheego qoftii jecel u sheegatay qof yacni kartile ama dadnimo leh ama ishuba qof jacayl u sheegatay yacni wax weyn oo maba sii sheegaba ninka raggaaba laakiin hadda waxaa kayd ku tahay laakiin ani tanxanta arkay tanxanta laakiin tanxanta kula arkay waa usoo badanay as daba qabano cilad kale wiilasha hadda waa ku arkay haye weliba wiilasha dhan maan kuwa tiktok majority fiirsado kuwa oo tiktok fiirsada gabdhihi soo galaan kuwa wax soo duuba macna okay wiilasha tiktok leyda tiktok leyda kuwa daawadaan kuwa daawadaan ku jira kuwa daawada ma aha kuwa tiktok leyda ay kuwa daawadaan ku jira actionka gabdhaha ku soo badan weyn ayagana sameentooda ama sameyn kari suurada suuri okay isjilcinta gabdhaha ku soo badan weyn macna haye naga qabta naga day marka waxaad leedahay adeegiina ku jooga meeshiina barxnimada iska dhaafo haye waa gartay marka waxaa maqli jiray muxuu ahaa inta badan fanka horumaraa laga sameeyaa qaar baa aaminsan inaan horumar iyo dhaqaale laga sameyn adi maxaa ka aaminsan tahay ana horta waxaan maama Soomaaliya mise adduunka kale aniga adduunka kale waxaan aaminsanahay in horumar laga sameeyo laakiin inaga waxaan aaminsanahay annagoo awalba hal qoomiyad ahayn oon luuqado kalena aan ku haysin in magacun ay tahay laakiin waxaan aaminsanahay qofkii fanka in ka dhigto part time oo danihiisa kala qabsado inuu horumar kala sameyn karaan aaminsanahay fanaanka laakiin fana ahaan oosan hadda wax dhaqaalaha ilaa hadda ma jiraa fanaan muxuu ahaa Soomaaliyeed oo maalqabeena oo fanka dhaqaale ka sameeyay oo la xusi karo waa maqasho ma arka mana maqlin haye
laakiin fanaaniinta keliya un maahan cudurkaas waxay qaranka nagiba meeshuu yahay waad aragtaa soo ma صح fanaankuna waa qaran ku nool فنانك intuu qaranka licliica isna waa licliica هذول اسمه laakiin hadduu dhismo copyright wax walba la yeesho waxaan aaminsanahay inay fanaaniinta hadda jira la kowsaday burburkii wixii ka dambeeyey iyo kuwii dowladdii muxuu ahaa xilligeeda shaqeynayay maxaa farqiga u dhexeeya anu waxaan aaminsanahay arday iyo macallimiintooda inay yihiin haye fanaaniintii hore waxaan aaminsanahay inay ustaadiinteeda yihiin macallimiinta yihiin haye dhaqaale ahaan annagana ardayda daba socota aan dhaqaale ahaan mid dhaqaale karanaya ahaan qiimeyn dowladnimo haystay inaga qurux badan ilmahooda waxbarasho u haystay gurye ayagu leeyihiin deganayeen ay wax walba u baahdaan mushaar dowladeeda fiican ay qaadanayeen magacooda ku meel marayeen inay qiimo ku lahayn laakiin waxaa iyagana majority ku yaraa inay fanki mooye shaqo kale ay sameeyaan laakiin way jiraan rag badan oo mutacalimiin ahaa oo aqoon-yahano ahaa barofesaro jaamacadeed ahaa laakiin waa farakotiris inta iyagoo fanaaniina haddana shaqo kale hadday business tahay hadday howlo kale tahay ku jira way yaraayeen intaan maqleha haye waxaan soo gaarnay qaybihii dambe fanaaniinta qaar fariin bay diraan qaar bulshadooda u sheekeeyaan oo ay ka qosliyaan ugu dambeyntii maxaa noo soo qabanay ha mar hadday qosashay waxay noo soo wadaa sheeko yar oo qosol badan dhammaanteedna aan wada qosolno laakiin fariina u diraa miyaa mise hal xabaa qaaka siinay xoogaa kastoo waayeel camal oo dardaarma haye ya oo fanaaniinta ah iyo bulshada soomaaliyeed okay mujtamaca soomaaliyeed haddaan ku horeeyo waxaan leeyahay horta waxaad wanaag ku weysiin foolxumo laguma doono waxaan aaminsanahay waxaa leeyahay waxaad walaalow ku heli karto oo waraya ku raadi waxaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kastood joogtiin wanaagga ka taliya ka tagay ka joogay iyo ku kasta iyo mid maqan iyo mid annaga dhan hal meel oo hal doonaan wada saarnaa keena maqan iyo kan joogaba waxaan aaminsanahay ummadaha geeska afrika ugu yar inaan nahay marka etoobiya naloo fiiriyo dad aada u yaraan nahay dad haddana aada u dhib badanaan anag haddaan soomaalina dadan soomaalina marka qoomiyadaha ummadaha kale naloo fiiriyo qoys un baan u dhiganaaba qoys yaraana qoys naga kadeed badanna male sax marka waxaan leeyahay saad u yartihiin saad dhibka ugu fogan tihiin horumarka ugu foganaado oo ka shaqeeya dib u dhiska quruxda waa wanaagga adoo wanaag in lagugu xuso heli kara xumaan in lagugu xuso wax fiican dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay maskaxdiina bal dib intay isu xisaabsan wixii idinla qurux badan qaato wanaag ah khudbadii wasiiradda haweenka ee mustaqbalka ay ku saadin laakiin haddaan bixil qabanayo waan jeclahay inaan haweenka iyo arrimaha bulshada iyo noqdo bas aan waxaa jeclaan lama sheegino ya ku sheego laakiin ee mustaqbalka micna ya maxaa ay siyaasadda waan jeclahay inaad siyaasi noqotid khudbadaada laga dareemayaa sida bulshada Soomaaliyeed u wacyigelisa laga dareemayaa walaashay hodan badbaado laakiin waa iloobay horta dadka inta badan hodan badbaado le dhahaane badbaado meel noo dhigay heestii la ama la badbaado badbaado xageed heestaas la waabo ha magaca saddex laag dad badan ay soo weydiin doona hodan cali axmed ha waxa kale soo iloobay meesha ku dhalatay iyo bees wixii dhan waa soo iloobay ilaa amarkiis haye hodan firweynaanteeda waa ka cabsatay maya xoogaa cabsi ma ahane dhanka kaamirada ninka jooga ka cabsada haye aniga magacayga saddexan waa hodan caliyare axmed caliyare axmed waxaa leeyahay hodan cali axmed naar aabbahay wax cali axmed u yaqaan yartay caliyare axmed ku magac dheeriyay waxaan ku dhashay gobolka galgaduud galmudug isteedan kasoo jeedaa macnaha waaw waxaan ku dhashay miyiga magaalada cadaado waa kaasaa 1995 maya ha igu sideed sanad baba la sheegay adila weligay ma qarinin bo ogola qofka ugu horeeyay oo sanadkeeda sheegtay saas waay inta badan anaga baasaboorkan lagu qorle la sheegaa kaasa meel walba igu qoranani diyaar waaye fanaanadeeda wada badbaada aad bay u mahadsan tahay dhanka kaamirada waxaa naga caawiyey isla markaana duubayay xaajiga madhaamse saaxiibkay calimaano marna ah
هذا حاجة كذا تري إنت برنامج لم يدب وجوده كل مدونه ودمانتين اسكتوا ونقول لسه دايما بتقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.